Maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland Siciid Saalax Shire ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dooxada Dagaar ee galbeedka magaalada Ceergaabo halkaasi oo ah goobta shirka afgarad iyo ayatalis ee beelaha biciide ka dhacayo waxaana maareeyaha xubnaha halkaasi ku soo dhaweeyay kamid ahaa madax dhaqameed salaadiin waxgarad iyo dadweyne kale ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah madax dhaqameedkii iyo dadweynihii kale ee maareeyaha halkaasi ku soo dhaweeyay Siciid Saalax Shire Maxamed maareeyaha madbacadda qaranka iyo waftiga la socda ku soo dhawow madashii aan gogasha dhignay maaray oo ah Dagaar maalmahanba waxa nagu soconayay waftiga ergeydiisa baa nagu soconaysay sida uu sheegay suldaanka waxa weeye insha Allah taala berri wixii ka bilaabma insha Allah shirkii waa bilaabmi doonaa halkan hadda waxaanu ku soo dhaweynaynaa maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland Siciid Saalax Shire waxaan leenahay maareeya ku soo maadaama anagu aan nahay gudidii qabanqaabada wax walba waa diyaar shirkii waxa weeyaan wax walba u dhameystiran yihiin fadhiga tafadal baan ku leenahay ku soo dhawow waxaan u mahadnaqayaa cid kasta waxa weeyaan erga ah oo si sharaf leh ku timi waxaan ku soo dhaweynaynaa maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Saalax Shire waxaanu leenahay maareeya ku soo dhawow shirkan iyo ka qaatay waxaanu madaxweynaha mustaqbalka soo socda waxaan ka codsanaynaa in loo ka dhigo wasiir insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Saalax Shire waxaanu leenahay maareeya soo dhawow waa halka qabanqaabada aan wadnay oo kuwa salaadiintii taagan madbacadda qaranka sida ay sheegeen markii hore waxaan mahadnaqayaa labada suldaan Ismaaciil Nuur Wacays iyo Suldaan Qoor Dheere oo la'aantoodan shirkani socdeenba waxaan leenahay ku soo dhawow shirkii beesha biciide Yoonis ee beesha Basanbuur ay gogasha dhigtay waan kugu soo dhaweynaynaa shirkaas waxaan sheegaynaa inaanu shir caadifadeed ahayn gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland Siciid Saalax Shire oo ugu horreynba ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waayeelka iyo waxgaradka ay ka koob yihiin salaadiinta beesha Basanbuur Suldaan Ismaaciil iyo Suldaan Ibraahim oo ku dhiiraday inay halkaas soo gagi banaana oo xilli adag oo abaareeda ay ku ballan qaadeen inay gogol dhigaan dhammaan cuqaashan iyo salaadiintan soo dhaweystay igu karaameysay gurigeygii mar labaadna iyagana aad iyo aad baan u soo mahadnaqayaa dhammaan waa mahadsantihiin gurigeygii baan imi Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo